okay walaalkay tayo salaamay marka hore marka xiga waxaan ku weydiinayaa walaasha aniga hal su'aal oo gaaban insha Allah ta'ala waxaad sheegtay marka ugu horeysa dalka inay joogaan dad Yemen iyo meel walba ka yimid oo cadow shisheeye ah Ugandaska iyo Burundigana wadanka waa joogaan ayagu ma aqaano goorta walaalaheen noqdeen dad Soomaaliyeedna ay noqdeen arrintaas oo jawaabteeda adigan ka rabaa su'aasha kale aan ku weydiinayaa waxa ay tahay Ugandaska iyo macnaha nimankan Burundiga ah waxay ku yimaadeen heshiiskii dawladii hore ee Cabdullaahi Yuusuf waa dawladii uu shariifka madaxweynaha markii uu gudoomiyaha ahaa uu diidanaa dawladii uu diidanaa dadkii heshiiska ee la gashay maanta maxaa idinka heshiis idinka dhigay oo maanta labadiina aad heshiis ku noqoteen ilaa dawladii heshiiskan soo gashayba Cabdullaahi Yuusuf uu watay wuu diidanaa shariifku dadkii uu keensadayna sidee bay maanta heshiis ku noqdeen intaasna waa jawaabteeda su'aasheeda kale insha Allah دولة بدري كرتين شريف عبد الله يوسف كبدلي مدحوينه ضلك وكبدلي الشيء كومبرمايز في اوغي هاي بين كوي ما اذا ما خمسهم كومبرمايز كي شلي عبد الله لقى كوم شيء كلا لقى الله في هاي الاوغي هاي واحد بقى او كتاغنا مكران وردت كان ودد سوماليين oo هاي dalkoodii joogaan maxay anagu حتى شلح السيسة أو صياح عبد الله مدحوينه سوى أو صياح طيب حتري السيسة عبد الله ساعة سوى مدحوينه تلقوا صياحي ثم قلت زفي عنه السيسة مدحوينه شلح أو صياح يعني واحد عيباله يهد لابا هاي متشفتو وأنا الوضع ما هو ذلك البرلمان كتير هو برلمان كي عبد الله مدحوينه مركو على تشوفي شريفنا مدحوينه كنا نقول واحد مشكلة هاي لا مالك اوكي ميسار بقصة الله بس ميسارك اكس كله انا قلت هو مالنا طبعا بس waxaa ku dhiman اكس كله wax ma ku haray اكس كله مو سعليان والله جواب اوكي ثانك يو ابو ماجد سلام ماجد ابو ماجد هذا كله السلام عليكم عبدي برادر ادي هذا وما سنتهي تليا waxa weydiinaya su'aal gaar ah weydiinaya haduu jiro soo taliya waxa ku weydiinaya waxay tahay macnaha waxa noo sheegtay in shabaabka ay ka soo dhaxtuuraan madfaca ayagoo macnaha markaasna khasaarihii gaaray ayaga mas'uul ka yihiin taas waa kula garanay waana wax iska jiro waa oo lala socdo laakiin waxa ku weydiinaya waxay tahay dagaalkan hadda oo military oo socdo oo rabtiin in dalka ugu sifaysiin ama idinkii maaragtay madaxtooyada laga wareegay kulay labadaas mid ay noqonaysaa dagaalkan idinkii shacabkii muu sheegtaan inay meeshii shabaabka joogaan ay ka guuraan oo meelaha nabadda ay tagaan si shacabka u badbaadisaan maadaama dawladda ay iska dhigayso dad shacabka u naxay shacabkii muu sheegtay idaacada leedihiin idaacadiina ma ka sheegtaan in shacabka ay meelaha si u badbaadaan dhiigooda iyo hantidooda iyo maalkooda ay kala baxaan mase dagaalka waa qarsoodiyo labadiina waxa waa labadii maroodiyo isdagaash waxa waa cooska dib ku qabo cooska dibka ku qabo meeshakada noqon doonta oo shacabka ma meesha dhiigooda ku baxaya dhufaysidii ma lagu kala jiri doonaa maqribka meeshii la kala qabsado ma subaxii hadan la kala qabsan doonaa sheekada masaasay ku tagi doontaa taas ina ii jawaabto waa aad su'aal oo maaragtaa niid ku hayo waaye mid labaad ku weydiiray laakiin waqtiga yar awgiis mar kale ta ka dhigana haduu ilaahay yiraahdo insha Allah assalaamu calaykum السلام يا وعوي وحل يرادو دي لا يرادو عمل يو كعب شيسا إنه وديت كاسان عم سنة هاي كنت تبقى عدلك كوهيان إلى هاي بقى وحن عرقني كتبو قصب لو بورسنة عبهد أو جوا قصب لو بورسنة عبهد أو جوا اللي سيك وطعم حدو سيواي أو يجيب الدليا hawshaas oo dhan waxa wata nimanka la yiraahdo muxuu ahay shabaabka nimanka nabadiidka ha wata dhaqan Soomaaliyeedna maaha mid kale dadka Allah ay ka guuro matraaleen Soomaaliyeedna aan barakacna waxa kumali barakacna dadku waxa weeye deegaankooda waa naqaana yoolasha ay nooga soo fidayaan madfacana waa naqaana anagu waa naqaan shacab weyne lala beegsado shacab weyne lagu mafido ومدفع كمسنا عنه
kumana filayna haddii ilaah yidhaahdo mid kale waxa weeye ayahow qurba joogtaa waxaa fiicnaa dalka inaad timaadiin waxa ka jira dhaqanka ay nimankaani ku hayaan inaad aragtiin oo timaadiin gabdhaha soomaaliyeed ee nin eesiyaan inta la siiyo samaynaya marka uu tegayo afka iyo gafuurka u duuban yahay gabadhii ninkii la siiyey ma taqaano soo ma garan haddii hadda dhibka ka jira dalka